xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa xarunta Villa Hargeysa waxa ay ku yeesheen kalfadhigii toddobaad kulankiisa 17aad waxaana kulankan shir gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madoobe kooramka xildhibaanada ayaa waxa uu maanta ku furmay 147 xildhibaan waxayna xildhibaanadu golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya akhrinta saddexaad ay marsiyeen hindisi sharciyeedka asaasida ciidanka heeganka bariga Afrika waxaana warbixinta akhrinta saddexaad ee heshiiskan golaha shacabka u faahfaahiyay xildhibaan Aweys Maxamed Cumar oo ka tirsan guddiga arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya intaasi kadib mudanayaasha xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa heshiiskan cod u qaaday waxaana ogolaatay inuu meel maro 144 xildhibaan hal xildhibaan ayaa diiday halka laba xildhibaana ay ka aamuseen sidaas ayuuna ajendahan ku meel maray maanta sidoo kale wasiiru dowlaha wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya Cumar Cali Cabdi ayaa xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya waxa uu kaga mahad celiyay heshiiskan ay meel mariyeen xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya waxaan maanta halkan u taaganahay anigoo ku hadlaya magacayga iyo kan wasaaradda gaashaandhiggaba inaan si qoto dheer uga mahad celiyo golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya gaar ahaan xildhibaanada maanta ansixiyay heshiiskan aasaaska ciidamada heeganka ee bariga Afrika East Africa Standby Force ansixintan ma ahan kaliya cod waa ballanqaad cad oo ku aadan mustaqbalka nabadgelyada xasiloonida dalkeena iyo guud ahaan gobolka Geeska Afrika go'aankan taariikhiga ah wuxuu muujinayaa sida ay uga go'an tahay golaha shacabka inuu xoojiyo kaalinta diblomaasiyadeed iyo midda difaac ee Soomaaliya ee heer gobol iyo heer caalamiba ku biirista East Africa Standby Force oo ah qayb ka mid ah qaab dhismeedka nabadda iyo ammaanka Afrika wuxuu noo sahlayaa inaan si wadajir ah wax uga qabanno caqabadaha amniga ee nagu wada xeeran si aan u ilaalino nabadda iyo xasiloonida dalkeena mudane gudoomiye xildhibaanada sharafta leh mudane Ali Marwey qodobada heshiiska East Africa Standby Force waxay si toos ah ula jaanqaadayaan yoolkeena qaran ee ku aadan inaan gaarno Soomaali oo xasiloon horumartay ka qaybgalkeenu wuxuu siinayaa fursad ciidamadeena qalabka sida inay xirfad cusub ka kororsadaan la howlgalka gobolka taasoo xoojinaysa awoodda difaaca qarankeena sidoo kale waxaan mar kale idinkaaga mahad celinaa ansixinta sharcigan wuxuu ku soo aaday annagoo sanadkii hadda June aan ku qabanay markii ugu horeysay magaalada Muqdisho East African Standby Force si la mid ahna aan December tan ku qaban doono haddii Ilaahay raali ka noqdo waxaan gudoon ka naqanay sanadkii la soo dhaafay ee December waxaan rajaynaynaa in sanadkan aan wareejin doono waxaan idinkaaga mahad celinaynaa sida aad u ansixiseen dhammaan xildhibaanada sharafta leh dhamaantiin waa mahadsantiin geesta kale xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa ka dooday hindisi sharciyeedka daawada iyadoona su'aalo ay ka mid yihiin in daawo dhacday dalka aan la keenin si weyn ay xildhibaanadu ay kaga doodeen waxaana soo laabatay in dalka qayb ka mid ah daawooyin aan la hubin ay soo galaan xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaana doodan ka yeeshay ajandihii la xiriira dhinaca daawada waa ku cayilaysaa wajigaada cayilayo oo gacmaha iyo lugaha iyo waa buurinaysaa waxaas oo dhan waxay u baahan tahay wax ka qabasho si aan xishood laheenin oo kala har laheenin waayo wadankeena waxa ogtihiin aniga waxaan ahay safaaradan ka shaqeyn jiray dhibaatada ugu badan
oo dadka Soomaaliyeed dibadaha u tagaano waxa waaye kansar maqaarka ama jirka ku dhaca ilwaanada sharafta leh hal aamuso ilwaanada sharafta leh hal aamuso cudurrada ugu badan ee dalka dadka ku dhaco dibadaha loo qaado waa kansar waxa sababana waxay tahay waxyaabahaas oo sida xadil'aanta loo isticmaalayo dad juhale ah oo reebaadiye inta meel furto wax isku dardaro xayisiinayo waxa ka gadanaya dad wax bartay oo hadina isticmaalayo deeq macallin Chino Chekay Sab TV Muqdisho shirkadda Telesom waxay qiimo dhimis ballaaran kugu samaysay internetka mobilka internetka bilaayan xadidin waxa lagu sameeyay qiimo dhimis 25% hadda waxaad ku helaysaa $15 oo kaliya shirkadda Telesom waxay sidoo kale 20% qiimo dhimis kugu samaysay internetka iyo ku hadalkii bilaha ah ee wada socday hadda waxa laga dhigay oo kaliya $20 si aad ugu shubato internetka aan xadidin waxaad ka wada helaysaa dhamaantood oo aad doorataa xidhmo unlimited ah macmiil ka faa'iideyso qiimo dhimista ballaaran ee lagu sameeyay